guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa maalmihii dambe hareeyay hadalhayn ku aadan khilaaf dhex maray laba mudane oo ka wada tirsan baarlamaanka heer federaal ee dalka Kenya oo markii dambe sababay in golaha dhexdiisa loogu gacan qaado Faadumo Geedi oo wakiilka haweenka ismaamulka Wajeer ku matasha baarlamaanka dalka Kenya. Soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari ayaa ka falceliyay dhacdada ugubka ah ee ka dhacday baarlamaanka Kenya, waxaana qaar ka mid ah dadkaasi oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in dhaqan ahaan ay Soomaalidu meel dheer ka taagan tahay in gabar gacan qaad lagu sameeyo. waxaanu ka hadlaynaa maanta annagoo ah duqeydii waddanka macnaha Kenya gaar ahaan Gaaris iyo Dadaab iyo Wajeer magaca waxaanu ka hadlaynaa dhibka ka dhacay Nairobi si wararka nagu soo gaarayaan internetka waxaa la soo geliyay gabadh la dilay oo afkorkor madax afka lagaga dhuftay. arrintaana waxaa waaye Soomaalidu caado ayay ka leedahay gabadh la dilay xeer baa ka yaala haddaanu nahay annagu Soomaali. Kenya baarlamaanka Kenya oo macal uu fadhiyo ninkii u sareeyay uu fadhiyo ayaa gabadh yar oo lagu afkorkoray lagu dhuftay. marka waxaan leenahay dowladda Kenya waddanka ayadaa xukunta, ayadaa dowladka annagu waxaan leenahay dowladda Kenya waa inay hawshaas ay wax ka qabataa. odayaashii ugu horreeyay baa ka hadlay oo Kenyana maartay fariin u diray wixii ma garanaysaa fikirkooda ahaa ee aan wada qabnay ee maartay dhibaatada inay dhacdo ay horista u tahayna ka hadlay. laakiin anigu waxaan ka hadlayaa ninkaas gabadha dilay oo dafka u geystay waxaanu qabnaa shalay dhibkii loo geystay iyo dafkii loo geystay oo asaga mas'uul ka ah. maanta dilka la dilayna waaba cadaystay oo fagaari ku dilay. marka dhammaan annagoo aan kala hadhanayn meelaan joognada arrintaas wayna saamaysay. anumada hadli karaba gabadha markaan arkay ilmada ka dhacaysa carabkeedu kala go'an yahay, feerkii ku dhacay iyo carabkeedu kala go'an yahay, dhiiggii iyo ilmada isku darmaday. annaga oo odayaal iyo culamaa u diin iyo dhalinyaro iyo waayeel dhammaantana u dhan arrintaa waxaan u dulqaadanayna ma aha. aniga oo magacayga la yidhaah Aaqil Axmed Sul Faarax waxaan ka hadlayaa arrintan dhacdada ee foosha xun oo sida ay u dhacdayba sideedaba ayna fiicnaynba. waxaa la sheegayaa inay ka dhacday arrintan meeshii sharci dejinta ama sharciga dejinta dalka Kenya sharci dejinta dhexdeedii bay ka dhacday. arrintaas waxay nabar fool xun ku tahay madaxda sharafta leh iyo baarlamaanka iyo dowladda intaba wax dhimaan leh u tahay in baarlamaanka sharci dejinta dhexdiisa gacan qaad loogu geysto shakhsi baarlamaanka ka mid ah oo weliba haddana dadkii maaragtay gobolka dhan ee Wajeer mas'uulka ka ahaa. magacayga waxaa la yidhaha Ugaas Maxamed Cumar Maxamuud. waxaan ka xumahay dowlad rigliya oo sharciyada taqaana oo magaceedu weyn yahay baarlamaankeedii in gabar lagu faydo. marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oon aad uga xunnahay gabadha lagu fayro baarlamaanka dhexdiisa. waxaanu ka codsanaynaa inay tilaabo cad ka qaado, tilaabo cad oo sharciya. magacayga Naada Maxamed baa la dhahaa. waxaan meeshan ayta iskugu soo baxnayna waxa way mudaharaaddan aytaan u samaynayna dhib annaga nagu dhacay waay taasoo aad iyo aad noo dhibtay ilaa waxay ku dhimatay iyo wixii lagu dilaanaan ogeen. horta haween nin u gacan qaaday ninka horta dhaacatanisan dhahnaa annaga gabar nin u gacan qaado oo baarlamaanka asagoo ku jiro naagoo naag ah gacantiisa horta markuu u gacan qaaday naagta ma asaga qab ajnabi bay ka dhabankeeda yaa tusay inuu horta ku dhufto letayba orumono nyodwa horosio na alega kwe kate kumanita adwooda magutu ka shifta ado Faadumo Geedi cali ku dhacday. arrinteeda waan ka xunnahay, waan ka qiiroonnay, waan ka xanuunsanay, waan la seexan weynay. magacayga waxaa la yidhahdaa Barre Cabdoogle. waxaan hay afhayeenka Wajeer South iyo Habasweyne.
hadda baarlamaanka hadday tahay meeshii gabadhayda lagu dilay oon soo doortay oo Wajeer county oo dhan matalayso nin MB uu ku dilay meesha jay tii geel la jirtay maxaa lagu suubin doonaa waxaan ka xunnahay dhibaatada gabadhanada ku dhacday aad baan ugu xunnahay Cabdullaahi Cabdi Ogle gabadhaas ayada xaalka isaga xaal aan ka xunnahay habasweyn mudaharad aan ka nahay maanta magaci ogaadeen aan ku hadlay Uhuru Kenyatta la hadlaya waxaan rabaa arintii gabadha inuu maartay ka qabto arin sasa hiyo msichana Fatuma Gedi tumewacha kwa mkono ya serikali afanye kazi serikali ya Uhuru Kenyatta Mungai afanye kazi arinta iyada aniga uma sheegahay niman kale oo xildhibaan iyo waxyaalo uma sheegahay dawladda Kenya waxaan ka codsanayaa ninka waa inay tilaabo ka qaad madaxweynaha waxaan u sheegaynaa arintaasayto waxaan u sheegay madaxweynaha in uu tilaabo uu qaado waan madaxweynaha la gaarsiiya ninka baarlamaanka hortiisa gabar ugu gacan qaaday oo bilcaan oo waxba yeelin waa in dawladda ninkaas ay tilaabo ka qaadaan Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Deere Maakhir Cable TV xiriyaha